Kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan barnaamijyadii taxanaha ee ku saabsan xanuunka adduunyada faraha ba'an ku haya ee COVID-19 ama coronavirus. Waxaanu ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyey ee adduunyada maantay, qaybaha ugu sarreeya iyo sida ay tahay dhimashada iyo xanuunkaas. Dalka Maraykanka oo ah dalka liiska koowaad ku jira ayaa la sheegayaa dadka maantay ugu dhintay waddankaasi inay gaarayaan in ka badan 1739 qof, halka waddanka Maraykanka guud ahaan ay ku sii dhowdahay nus milyuun qof, iyada oo dadka uu cudurkaasi u jiifa ay gaarayaan 495,750 qof. Maanta oo kaliya ayaa waxaa la diiwaan geliyey waddanka Maraykanka 27,184 qof, halka wadarta guud ee dhimashada waddankaasi ay marayso 18,430 qof. Waddanka Spain ayaa la sheegayaa maanta inay ku dhinteen in ka badan 523 qof, halka wadarta guud ee dhimashada ay marayso 15,970 qof. Maanta oo Jimco ahayd ayaa waddankaas waxaa la diiwaan geliyey 3,831 qof. Guud ahaan waddanka Spain ayaa la sheegayaa in 157,053 qof uu soo ritay xanuunkaasi. Waddanka Talyaaniga oo asagana ku jira kaalimaha sare ayaa la sheegayaa maanta inay ku dhinteen 570 qof, halka wadarta guud ee dhimashadu ay marayso 18,849 qof. Maanta oo Jimco ahayd ayaa la diiwaan geliyey 3,951 qof, halka guud ahaan waddankaasi 147,577 qof ay xanuunkaasi u jiifaan. Waddanka Faransiiska oo asagana ku jira kaalinta afraad ayaa maanta oo Jimco ahayd waxaa ka dhacday dhimashadii ugu badnayd, iyada oo ay dhinteen 987 qof. Dhimashada wadarta guud ayaa gaartay 13,197 qof, halka maanta oo Jimco la diiwaan geliyey 7,120 qof. Guud ahaan waddankaasi xanuunka waxaa u jiifa 124,869 qof. Dalka Jarmalka ayaa maanta dhimashadiisu ay hooseysay 121 qof ayaa ku dhintay. Wadarta guud dhimashadu waxay maraysaa 2,728 qof. Dadkii maanta la diiwaan geliyey ayaa gaarhayay ayaguna 2,810 qof. Guud ahaan waddanka Jarmalka ayaa la sheegayaa 121,045 qof inay xanuunkaasi u jiifaan. Waddanka China oo ah xuduntii cudurka kan waxaa maanta ku dhintay 1 qof, halka dhimashada guud ay gaaraysa 3,336 qof, iyadoo maanta oo Jimco ahayd la diiwaan geliyey 42 qof oo cusub. Guud ahaan waddankaas xanuunka dadka u jiifa waxay gaarayaan 81,907 qof. Dalka UK ama Ingiriiska maanta oo Jimco ahayd waxaa ku dhintay 980 qof, halka la diiwaan geliyey 8,681 qof, iyadoo wadarta guud dhimashadu ay marayso 8,958 qof. Guud ahaan waddankaasi UK waxaa xanuunka u jiifa 73,758 qof. Dalka Iiraan ayaa asagana maanta waxaa ku dhintay 122 qof, halka la diiwaan geliyey 4,232 qof. Waxaa dhimashada waddankaasi ay maraysaan in ka badan 4,200 oo qof. Guud ahaan waddanka Iiraan xanuunka waxaa u jiifa in ka badan 68,192 qof. Waddanka Turkiga ayaa maanta asagana waxaa ku dhintay 98 qof, halka dhimashada wadarta guud ay gaartay 1,006 qof, iyadoo maanta oo Jimco ahayd la diiwaan geliyey 4,747 qof. Guud ahaan xanuunka waddankaasi waxaa u jiifa 47,029 qof.
Waddanka Biljimka ayaa la sheegayaa isagana in maanta ay ku dhinteen in ka badan 496 qof, halka dhimashada ay marayso 3,019 qof. Guud ahaan waddankaasi waxaa maanta la diiwaangeliyey 684 qof, halka 26,667 qofna ay u jiifaan xanuunka. Waddanka Netherland ayaa isagana la diiwaangeliyey 115 qof, halka dhimashada ay marayso 2,511 qof. Waddankaas guud ahaan maanta waxaa la diiwaangeliyey in ka badan 1,300 oo qof. Waddanka Brazil ayaa la sheegayaa isagana maanta inay ku dhinteen 103 qof, halka dhimashada wadarta guud ay maraysa 57 qof. Waddankaas maanta waxaa la diiwaangeliyey in ka badan 493 qof, halka dadka u jiifa xanuunkaasi ay gaarayaan 19,638 qof. Guud ahaan waxaa la soo wariyey maantay caalamka in ay ku dhinteen 6,517 qof, halka dhimashada guud ee adduunkana ay marayso 102,209 qof. Guud ahaan maantay adduunka waxaa la diiwaangeliyey 84,455 qof, halka dadka xanuunkaas adduunyada dhan u jiifa ama uu soo ritay ay gaarayaan 1,688,107 qof. Waxaan intaas kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa xanuunka coronavirus ama COVID-19. waxaad naga sugtaanba waa tallaabada ku xigta. Wabilaahi towfiiq. Kusoo dhowaada barnaamij gaara oo ku saabsan barnaamijyadii taxanaha ee ku saabsan xanuunka adduunyada faraha ba'an ku haya ee COVID-19 ama coronavirus. Waxaanu ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyey ee adduunyada maantay, qaybaha ugu sarreeya iyo sida ay tahay dhimashada iyo xanuunkaas. Dalka Maraykanka oo ah dalka liiska koowaad ku jira ayaa la sheegayaa dadka maantay ugu dhintay waddankaasi inay gaarayaan in ka badan 1,739 qof, halka waddanka Maraykanka guud ahaan ay ku sii dhowdahay 500,000 qof, iyada oo dadka uu cudurkaasi u jiifa ay gaarayaan 495,750 qof. Maanta oo kaliya ayaa waxaa la diiwaangeliyey waddanka Maraykanka 27,184 qof, halka wadarta guud ee dhimashada waddankaasi ay marayso 18,430 qof.